وقل رب زدني علما أرضيا قلت واسدي إليس واسدا أرورتيو أكتوا بركي أرضيا قلت واسدي إليس واسدا أرورتيو أكتوا بركي إرما وين كله أبد بمالو أقبل معلمين تاو والدكنا أدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد waxaa la yiri goorta laga hadlayo xifdinta ama qaybida ama korka qabashada shay-uun waxa dadku ay u qaybsamaan afar nooc. nooca koowaad waxa weeye dad sariicul fahmi sariicul nisyaan, dad si fudud oo degdeg ah wax u fahma haddana si degdeg ah wax u ilaawa. qaybta labaad waxa weeye qof sariicul fahmi ah oo si fudud wax u fahma laakiin batii'un nisyaan ah oo ilowgiisa u gaabiyo oo xogtii ama wixii uu xifdiyay aan si fudud aan ku ilaawin. qaybta saddexaad waxa weeye batii'ul fahmi batii'un nisyaan, qof si adag wax u fahma laakiin wixii uu fahmay aysan si fudud aysan kaga bixin. qofka afraad ee ugu dambeeya waxa weeye batii'ul fahmi, qof fahankiisu gaabiyo oo fahankiisu uusan dhoweyn haddana sariicun nisyaan, si fudud wax u ilaawa. afartaas nooc ee aan soo sheegnay noocee ayaa tahay adigu?